واحد إذا ما مدنية إيش الدولة باك جرتي واحد إذا ما مدنية ميانا يكبحين دولة نمدي ماشى دولة نمدو هلكا كساري لكن إنه نوحي نولاني دad hanfada oo aan qalbadoodu deganayn oo iska diyaacaya waad arkaysa erigaabo filmadii laga fidinayay eebihii laga gudbinayay guryaha maxaan ku dhaahdaa magacyada lagu qorayay waad la socotaan dadkii waxa ka shaqeynayay ee sameynayay waa adiga eebaadan lahayn in lagugu tiro qaar baa imika waxay ku doodayeen inaan imika halkan saaraa wuxuu ku doodayay igal xajisow waynu idin codaynay waa inaad dagaalka xoog ku gashaan waabad ii codaysay ma xumaba haddaabad ii codaysay miyaanay dowladnimo ahayn waxaad iigu codaysay ma waxay ahayd kaalayo dhulbahanta ilallah ma waxay ahayd kaalayo daarood ilallah ma waxay ahayd kaalayo maxay marka haddii aad walaal ii codaysay oo aad ilaahay haba kuu gargaaray aabad ii gargaartay yaa dadka kaleba waad codaynaysa ninkaad doontaad codaynaysa laakiin dantaadu ma waxay ahayd inaad aniga igu tirto ood gacmaha dhiig ii geliso dhiig inaad gacmaha ii geliso miyay kaa ahayd dee kaamay ahayn daacaddan baad lahayd dee aniguna maantay dagaal diyaar uma ihi waxaan diyaar u ahay inaan waddankaa xukumo waxaan diyaar u ahay barwaaqada iyo nimcada iyo waxaan kuula jiifo jaqda hargeysa lagu qaato inaan qayb ka noqdo inay ubadkaygu dareeraan in hablahayga gawaadhi cad lagu qaado in inamadaydu aanu midna qori qaadane ay dowladnimo u yagleelaan ay iskuulla ka baxaan ay jaamacada ka baxaan ay waxaan ku uri jiif oo jaq inanta ingiriiska joogtaa ay ku qaadato tan maxay heydaytay fadhidaa maxay heydaytay gaashaamiyo maxay heydaytay awaare ilaa iyo afka maxaan ku idhaahdaa maxay heydaytay ay ku qaadato lacag halkaa sidii dee dadka kaleba ay yeelayeen haddii allaba leeyahay aniga maanta kaalayoo dagaal gal oo dafdafdhe oo ila soo orod oo halkan guri magac ku qor oo halkan guri kale xalgaa saldanadii guud ee warsangani waxaan ku idhaahdaa inagala mid ahayd maxay ahayd Somaliland weligeed halkaa dadkaa ka mid ahayd maxay ahayd dadkaa xalaashaya inaan iyo abtiga aynu nay iyo reerkaa dhulbahanta wuuba tegayba wuuna diiday waana lagu khasbay dhulbahanta khasab maalin walba wax shaariicada loo soo galayay madaafiicda kala dooro kee kugu dhuftaa kee kugu soo hogaamiyaa inama yareer baa social media-da la soo galiyay dhul intaasoo dhul baan kaa qaaday awoowayaashaa baan gumaysan jiray kanaan yeeli jiray maanta waxaa la doonayaa inaguna inaynu intii nidhaahno inaynu warsagani iyo dhulbaanta ku nidhaahno may inagu maanta dowlad baynu nay inoo soo gaag waan wadaaya imikaaba qabsadaya joog marka inaan waliba oo garxajisa waxaan halkan ka farayaa no dagaal dantaada ma aha dagaal guri kuma dhismo heer laguma gaadho maanta haddii aanu inagiyo reerkaa maxaydayta hartiyo aynu dabaabaad isku garaacno oo aynu wax walba isku garaacno midkeenna fooqyo ku dhisan maayo ma jirto maxaydaytay damdamta kale ee halkan lala soo galayo ee ah Somaliland maxaydaytay waa ninkii ka hor yimaada garxajis waa inuu dagaal galaa ninkii ka hor yimaada waa Somaliland diid adeer fiilaayo kolkuu joogay dowladdii dhammayd siday u dhammayd kalshaalay ka dagaalamaysa reerkaa dhulbahantaa lagu weeraray reerkaa dhulbahante ayaa lagu weeraray waad arkaysa sidii loo gelayay maanta ma waxaad iga doonaysaa anigoo garxajisa in sidii siilaanyo aan habar jeclo u soo raaco dhulbahante iyo dadka harti oo dowladdii oo dhan lagu maxaydayta lagu baabi'iyey oo loo adeegsaday miyaa maxaydayta maantana la doonayaa in dowlad kale loo adeegsado laba joor loo adeegsaday labadii joorna dee ina bixina waxay ku dhigeen waad arkaysa tii siilaanyana dee buuhoodla miyaa laga qaaday dhulbahante kalshaale miyaa laga qaaday dhulbahante waa may halkoodii unbay joogaan marka in adeer qofkii dagaal doonayow inagu garxajis haddaynu nay beri baynu ka nay haddii aynu inagu qabiil ahaan garxajisnay dagaal beri baynu ka nay nabad baynu ka nay daarood inaga nin kale oo waxaan ku udhi 1994 dagaaladii la gelayay dadkii hubka iyo ay noo soo dhexmarayeen cuntada iyo wax waliba waxay ahaayeen reerkaa harti iyo reerkaa kabla laxdaarood
ما أنتينا فتشد الله ولاقيو وانو حينو لسعنا إنا بيحي لبا كن أو إيدانا إيو هبكي دولة جمهورية سومالان والله بحي يلعكتيبا إنو كو هايستعرف سيا وإنو لسعنا إنو سرطان بينو وضناي من إنت تشاهلاينو جوهلايو جيل لتشوغو هالكن اسكا سوقلو اسكا قيليا وينو هينا we work for secret services بينو شقينا you know we have high IQ we are well educated wax waliba waynu la soconaa marka waxaan halkan uga digayaa ragga garxajis inantaa gooshaysa magaciina afkeeda soo marina ka saara afkiina arrintan ina bixi ayaa ka shaqeynaya inantaa ka xishooda inantaa inagu ragga iyagu hablaha wax ma soo qaadaan magacyadooda in hablaha magacyadooda hala dhigo waxaa kale uga digayaa inaad ka waantowdaan hadallada xanafta leh ee dadka jaarka kula ah ee nabad lagu soo dabaali karo wax kasta oo aanan guriga ceerigaaba guurayn kaaguna aanu guurayn kan hartina aanu guurayn taasina yaanay afxuma kaaga tegin dawlad baa tahay adigu jahabad matid maanta waxaad tahay kii dadka kii gar daran iyo kii gar laba u kala gar qaadi lahaa waxaad tahay kii isku hogaamin lahaa labada qof ee Soomaaliga ah waxaad tahay nin garxajisa oo taariikhda ummadda Soomaaliyeed baal dahaba kaga jira nin aan cunfi iyo calool ku sido iyo xumaan aan aqoon waxa arkaya kuwa odayaashii nabadda ku baaqay halkan ka ereyanaya waxaasi waa sharaf dhac waa sharaf darro ninka garxajis sidiisa ayuu boqor ku yahay waxa lagaaga baahan yahay nin kasta oo Soomaaliya waa walaalka cadow kuma aha nacab kuma aha maxaydeeyta kuma aha reex shaxaaqnimadana dadkii doonaya welcome waa walaalaha laakiin sheekh isxaaqnimo laga leeyahay daarood igula dil ama harti igula dil ama maxaydeeyta kilka shanaad igula dil inagu kamid manihin reex sheekh isxaaq waligii wuu jiray wuu joogay war hadalkana maxad la waxay dadkani marka waxaan idin sheegayaa inamada yaryar ee garxajis qalinka qaado waryaa buugga qaado maxaydeeyta wasaaradda maaliyadda iska soo rajistaraare maxaydeeyta ciidamada meel waliba dhis dhaq dhulkana dhiso hadday noqoto kilinka hadday noqoto hargeysa meesha lagu cuno magaca Soomaaliland lacagta lagu soo qaadaa waa hargeysa awaarana ma aha maxaydeeyta gaashaamana ma aha maxaydeeyta daroor iyo maxaydeeyta ma aha lacagta iyo waxa lagu soo qaadaa waxa yaalaan berbera iyo hargeysa labada waxa weeyaan waa inaad ka muuqato waa inaad dawladnimada gaarsiiso meel waliba waa in Cabdiraxmaan lala shaqeeyo dadka ka soo horjeesta dawladda waxa weeyaan kolka hore shabshable iyo nabad baa lagu doonayaa ka hadli maayo anigu reerka harti waxaan ka hadlayaa inta joogta halka ay dawladnimada iyo lacagta lagu cuno waa magaalada Hargeysa iyo Berbera labada meelood waxa weeyaan in aad cadkaaga ka goosato adiga oo garxajisa maantana aad xukunto laakiin dadka dagaalada u xidhiidhay habar jecel haday dagaal doonayso dhulbaanta waa ka haddii maxaan ku raahdaa habar wal ay ogaadeen iyo absama doonayso waa kuwa laakiin inagu nabad baynu leenahay inamada yaduna ku dhiman maayaan 35 sano ayaanan haykal dawladnimo iyo dhaqaale dawladnimo iyo waxaan ku oray intaba aynu ka qatanay maantana waad u jeedaa meel walba in laga soo qayliyo kolkii Cabdiraxmaan kursiga fuulay in fajido una bixi walaaqaya waynu la soconaa kuwa kale oo magaca habar jecel wata oo ku qaraabanaya oo qaarkood isma sheeganayo waxa ay walaaqayaan waynu u jeednaa anigu waxaan qabaa jeegaano inay halkeedii tay laakiin ninka garxajisow Soomaali dagaal ku lama jirtid waana ka baxay